marka ay noqoto dhinaca nabadgelyada Somaliland waa meelaha ugu nabadda fiican bariga iyo geeska Afrika. Nabadgelyada oo kaliya ma aha waxyaabaha ay Somaliland kaga duwan tahay dalalka kale ee bariga iyo geeska Afrikaba ku yaal, balse xurriyadda hadalka iyo saxaafadda ayaa ahaa welina ah mid lala soo xasuusto Somaliland. Tan iyo intii uu talada dalka qabtay madaxweynaha Somaliland ee imika mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaa dhowr jeer qabsoomay su'aalo ay saxaafaddu madaxweynaha toos u weydiinayso. afooyin qaran baa sheegtay oo maxay masiibooyinka galbeed ka dhacay hore inaga roob iyo daadad baa jira dooxyo dad badan bay qaadeen maxay tahay qorshaha xukuumadda maleeda qorshe ay ka hortaga masiibooyinka ama afooyinka soo socda hadii wacyigelin noqonayso hadii ciidan gobol noqonayso taas waa mid su'aasha labaad waxa sheegtay inaad Cabdiweli gaas la hadlayn farmaajada kala hadlayso farmaajada waxa muuqata inaanu diyaar u ahayn in arrimaha Puntland kaaga hadlo maxay talaabada kuugu xigtaa haduu diido ta saddexaad arinta calafayn wali way taagantay waana soo noqotay miyaan la oran karin arinta dawladdu iyo dawladdu hore way tahli kari waday wax qabashada arinta deegaanka dadiyad xilka haysa waxaad moodaa inuu si u badanayo xarigii siyaasiga ahaa arintaas aad u aragtay madaxweyne waxaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo xaaladda bariga gobolka Sanaag maamulka Puntland madaxweyne si walba waa u galeen muddooyinka ugu dambeeyay waa ku sugnaayeen adna wasiir tagay uu ka soo noqday bal madaxweyne maxaad ka damacsantahay gobolkii baran sheegtay in la joojiyay ama dawladdu joojisay ka baaci mushtariinta waxbarashada bal faahfaahin dheeraad ah bulshada ka siimay dugsiyada gaarka loo lahaa meesha ka baxaya su'aashada labaad waxa weeye maanta waxaad xusaysaa 350 sano dugsiga anna waxaan ku xasuusiyo waxaan dhamayn 20 sano ka hor waqtiga talada dalka hayay maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaad ku jirtay siyaasiyiinta loo jiray mucaarad waqti inta la hadashay waxaad sheegtay in madaxweynaha adoo ku tilmaamaya in 70 jir idin ku talinayo adigoo leh maxkamadii reerkaaga haya taliyay ciidanka qaranka reerkaaga haya xirlaalintii reerkaaga haya bal baantaada kursiga ku fadhiya daadu waa daadiisii 70aad waa tahay bal maxaad ka xasuusataa maalmaha aad madaxweynaha arkaa ku yeedinaysa maanta dawladda ay ka jirto qaabka aan gabashada iyo habrashada lahayn ee ay wariyeyaashu su'aalaha u weydiinayaan madaxweynaha iyo sida turxaan la'aanta ah ee uu madaxweynuhu uga jawaabayo su'aalaha ayaa noqotay waxay u riyaaqaan dadka u dooda xurriyadda hadalka iyo fikrad isdhaafsashadu dhaqanka su'aal weydiinta saxafiyiinta ee madaxweynaha ayaa ahaa waxay hore u sameyn jireen madaxweynayaashii hore ee Somaliland soo maray su'aalo cidii weydiinaysa inaan uga gudbo badan aba marar fara badan golaha wakiilada la hadlasay waxa sharciga ma taqaanaa maalin dhaweedood Norway walaal tisjaaliyada waxa tii sharciga ma taqaanaa waxa kaloo wariyaashu markay su'aal ku weydiiyaan atirada adigoo kulul sharciga soo barta markaa uu bandow sheeg adigu sharciga aqoonta u leedahay iyo shahaadooyinka aad u sidato isla markaasina sharciga haddaad sidaa u taqaano waxa dalkaadan amba dalka madaxweynaha ka tahay musuqmaasuq iyo cadaalad darrada ay jilbaha dhigeen aad ugu dhaqi weyday su'aal hore darraad markaa dalka ka dhooftay madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ku dhawaaqay in dib loo dhigay shirweynihii xisbiga kulmiye 12 January ugu midaysnaa oo dad ugu codsatay inkastoo uu sanadihii u dambeeyay gaabis ku yimi haddana dadweynaha ayaa danaynaya inuu madaxweyne Muuse Biixi sii wado dhaqankaas. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab, Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida